بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسان مeel kasto daafaha caalamka iyo dhulka Soomaaliyeed ka joogtaan xilligan ku soo dhawaada warka telefishinka Somali News oo idinkaga imanaya stuudiyaha koowaad ee telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Qodobada daawada xilligan wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi hogaaminaya mudooyinkii u dhameeyay safar shaqo ugu maqnaa dalka Djibouti ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa isaguna maanta dhagax dhigay jaamacadda ummadda fariceeda magaalada Caabudwa. Maxkamadda ICJ ee gacanta ku haysa muranka badda ee u dhaxeeya dawladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa kiiskii dib u dhigtay muddo 2 bilood ah. Akhbaaradka caalamka daawadeed waxaad ku daawan doontaan madaxweynihii hore dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa isaguna maanta geeriyooday. qodobadaasi qodobo kala daawada ku soo dhawaada warkii oo fisan.